inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. waxaa gelinkii dambe ee galabta lagu aasay ismaamulka magaalada Mandheera marxuum Maxamed Kaahiya Cismaan oo ku magac dheeraa Xaaji Buulo. marxuumka ayaa caan ka ahaa ismaamulka magaalada Mandheera iyo guud ahaanba gobolka Waqooyi Bari, isagoo geeridiisa ay ka tacsiyeen mas'uuliyiinta ugu sareeya ee magaalada Mandheera. aaskiisa ayaa waxaa ka soo qayb galay shacab aad u tiro badan, iyagoona sheegay in marxuumka lagu xasuusin doono mideynta shacabka degan magaalada Mandheera. allaha u naxariista marxuumka ayaa waayihii dambe ku xanuunsanayay magaalada Mandheera sida ay sheegeen eheladiisa. gudoomiyaha ismaamulka magaalada Mandheera Cali Ibraahim Rooba ayaa xaajiga ku tilmaamay waxgarad caan ah oo lagu yaqaanay arrimaha nabadeynta iyo mideynta bulshada. gudoomiyaha magaalada Mandheera ayaa qoraalkiisa ku xusay in kaalinta marxuumka ay cidna buuxin karin. waxa uu sheegay in murugada la qaybsanaya qoyska oo uuna taageero la garab taagan yahay xilligaani ay murugaysan yihiin. Cali Ibraahim Rooba ayaa ugu dambeyn alla ugu bariyay Xaaji Buulo inuu ku abaalmariyo Jannatul Firdaws. geesta kale waxaa dhankiisa tacsiye tiiraanyale marxuumka u diray Suldaan Maxamuud Khaliif oo sheegay in marxuumka marna ay ilaawi doonin kaalinta uu ku lahaa bulshada reer Mandheera. Ibraahim Cabdulaahi Ibraahim Daacad, Filan Radio FM, magaalada Mandheera.